السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسن إذلكين با أرضية كوحرا كورسكا content management system والدين سلامة يعمل والبقات يوكتان waxaa inoo socday qaybihii maxaa content management system qaybihiisa kala duwanaa aan soo gudubnay qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaad imika waxaan bilaabeynaa qaybta afraad oo ah qaybta ugu dambeyn doonto oo aan ku falanqeyn doono sida content management-ga uu u shaqeeyo sida uu u shaqeeyaa content management-ga waxaan ku soo duubay qodob ka hadlayay sida uu u shaqeeyo ayadoo English version ah inkastoo dad kale ee ajnabi ah ay ku xiran yihiin badanaana ay aad diiradda u saaraan koorsooyinkanaga aan soo dhigno ay daawadaan waxa daruuri noo noqotay inaynu luqadanada Soomaaliga aan iyadana maxaa lahaa aan ku soo duubno koorsooyinka inkastoo koorsooyinkii hore u baxay ee badanaa ay dhamaantoodba ay ahaayeen af Soomaali ay ku wada baxayeen laakiin imika tan content management-ga waa laba qaybood Ingiriis iyo Soomaali marka qayb hore ayaa jirtay ee aan soo duubay ee ka hadlaysay content management-ga sida uu u shaqeeyo oo Ingiriis ku baxaysay imika qaybtani waxa waaye af Soomaali ayaan ku sharxi doonaa in yani wax fikrad ah laga siiyo fikrad sida uu u shaqeeyo content management-gu waa wide wheel tour waaye waa wax yani weyn aad u weyn leh looga isticmaala dunida looga isticmaalo waaye waana WordPress interface ayaa kamid ah WordPress interface-ka wuxuu kamid yahay content management-ga ayuu kamid yahay marka WordPress-ka muxuu yahay WordPress-ka waa example-ka kan ugu wanaagsan ee aan ku soo qaatay content management-ga system-ka aan ku soo qaatay waana midka ugu fudud ee aad fahmi karto marka kuwa kale loo eega anigu hadda waxaan rabaa inaan aan muujiyo qaabka loo sameeynayo website-ka qaabka loo sameeynayo laakiin ma rabo inaan anigu website dhameystiran oo complete ah inaan sameeyo management content la'aan waxaad u bahnaanaysaa inaad static HTML aad qorto haddii aanu jirin maxaa lahaa ama aanad doonaynin in WordPress iyo content management-ga application-nada la halmaala content management-ga ah haddii aanad doonaynin inaad kuwaasi aad ku diyaariso website-kaaga waa inaad soo diyaarsataa static HTML code inaad qorto aad ku soo upload gareyso browser-ka aad ku soo upload gareyso hawada internet-ka aad saarto adigoo server-ka ka soo upload gareynaya marka server application jiro maxaa lahaa FTP barnaamij la yiraahdo jiro oo laga soo saaro maxaa lahaa dokumentiyada computer-ka ku jira laga soo saarayo oo website-ka dan si uu u akhriyo dokumentiyada uu u bedelo in online loo bedelo dokumentiyadaasi domain iyo hosting intaba maxaa lahaa loo iibiya hosting loo sameeyo domain loo iibiya marka taas waa marka aadan isticmaalaynin WordPress content marka aadan isticmaalaynin waaye platform-kan WordPress marka aadan isticmaalaynin waa marka aad adiga qudhaado aad tahay coder qorayo HTML static inaad qorto iyo dhameystiran file dhameystiran oo maxaa la lahaa different language inta doonto waad ku qori kartaa waxaan tusaale ka soo qaatay WordPress ayaan soo qaatay WordPress waa midka ugu fudud ee laga sameeyo marka WordPress-ka content management system-ka hadda waxaad u bahnaanaysaa inaad qorto maxaa la content-ga aad ku qorto ayaad u bahnaanaysaa interface qurux badan in yani si uu interface qurux badan u soo saarto content-ga aad ku qorayso marka lagu dhahayo waxa waaye inaad diyaariso menus-ka inaad diyaariso menus-ka inaad design-ka aad diyaariso qolofka website-ka inaad markii hore shaxdiisa aad dejiso aad diyaariso adoo ku soo diyaarinaya design softwareska badanaa la isticmaalo design softwareska waxa kamid ah inaad isticmaasho maxaa lahaa platformska kala duwan Adobe-yada way kala duwan yihiin inaad Photoshop aad ku isticmaasho inaad ku isticmaasho maxaa lahaa Adobe design-ka lagu talgalay UX-ka ama UI-ga lagu design gareeyo mid kala jiro oo la yiraahdo graphic designer la yiraahdo jiro Microsoft Word asagana sidoo kale waa ku isticmaal documentation ayuu kamid yahay documentation softwareska ayuu kamid yahay Microsoft shirkadda Microsoft ay leedahay
asigana sidoo kale waad ku diyaarin kartaa wax problem ah malahan marka hore waa in naqshada markaas aad u dejiso waxa u baahnaanaysaa inaad yani shaqada creating website-ka inaad gasho creating website-ka shaqadeeda inaad gasho abuurista website-ka inaad gasho oo ah hosting-ka inaad domain-kii iyo hosting-ka inaad hawsha ka bilowdo dan maxaa lahaa design-kay aad samaysay mid yani u eg ama midka adiga aad samaysay isla isaga inaad serverka ku soo upload gareyso theme-kan ka hadlaya isla serverka inaad ku soo upload gareyso sidaas aad u saarto inkastoo badana WordPress-ka shabakada gooniya leedahay oo lagu talagalay themes-ka qaabilsan ay leedahay plugins-ka qaabilsan marka lacag waay badana marka kuwa free jiro la isticmaalo midka laakiin adiga aad samaysatid wax lacag ah ma ahan waxa waaye waa mid static adiga kuwa adiga static code aad qortay HTML file aad ku diyaarisay ama CSS different language ka option ka iska la isticmaal kara ama JavaScript waxa doontada isticmaali karaya marka tusaale waxaan soo qaatay laba sabir ayaan soo qaatay midna wuxuu tusaaleynayaa maxaa lahaa sub actionska oo gudaha ku dhex jiro dashboardka midna wuxuu tusaaleynayaa dashboardka qaybtiisa interface-ka ee ah postiga marka la qorayo waan jeclaan lahaa inaan muuqaal dhameystiran aan ka diyaariyo oo yani platformkan aad u sharxaya laakiin waxaan inoo saamaxaynin asiga waa course gooniya lagu qaataa barnaamijkan WordPress-ka soo dhameystiran waan ka hadli doonaa course dhameystiran WordPress-ka ka hadlayso ayaan iyadana aan ku soo qaadan doonaa macluumaadkan oo dhan oo aad ku fahmi doonto aad ku noqon doonto WordPress developer aad ku noqon doonto marka qaybta labada sawir aan ka soo qaatay dashboardka qaybta ugu horeysa waa bosseska aan ka soo qaatay new bosse sida yani halkan waxa ka muuqdo meeshii lagu qorayay article-ka meeshii lagu qorayay ama headline-ka meeshii lagu qorayay iyo meeshii lagu qorayay paragraph-ka meeshii lagu qorayay macluumaadka faahfaahinada meeshii lagu qorayay sidoo kale waxa ka muuqanayo sawirka sida aad ka arkaysaan si fiican uma muuqdo waxa ka muuqanayo publish button-ka iyo postiga aad qortay inaad sii fiiriso review inaad ku sii samayso haday wax ka qaldan yihiin intaadan publish saaran wuxuu leeyahay images oo leeyahay media waa kaas noo muuqdo waay media leeyahay marka aad sawir ku soo dareyso ama muuqaal aad ku soo dareyso ama cod waa sawirka kan inoo muuqanaya marka raali ahaada marka future images oo leeyahay media soo leeyahay wuxuu leeyahay pages oo leeyahay pages marka aad sameynayso menuska kuwa maxaa la la doonayo page yani maxaa la contentiga marka menu lagu lufto unan page kale type kale u fureynin iyo mid diyaarsan oo page la diyaariyay tab kale u furi kara option kada iska leh ama isla type-ka u furi maayo wuxuu ka dhex furayaa isla website-ka dhexdiisa isla window-ga uu ka kacsan yahay maxaa la lahaa domain-kaas uu ka kacsan yahay website-ka dhexdiisa asuu ku dul furaya marka option kada iska leh selection kada dhiibanayo marka sameynayso page-ka marka sameynayso website-ka gudihiisa pages uu leeyahay pages-yada waxa waaye kuwa menuska waa marka comments-ka qaybta iyadana comments uu leeyahay commentiyada lagu reebay dadka soo booqday visitors ka meesha soo booqday commentiyada reebeen wuxuu leeyahay appearance oo themes-ka inaad theme-ka quruxda website-ka iyo muuqaalkiisa iyo inaad wax qurxiso iyo aad wax ka bedesho waxyaabahaas ayuu leeyahay wuxuu leeyahay plugins waxa waaye management systems-ki waaye waa macluumaadkii hagi lahaa website-kaaga hagi lahaa waaye plugins-ka asiga website-ku waa content gudihiisa wax dhex yaala laakiin management-ga muxuu yahay management systemska waa macluumaadka plugins-ka ee isagu hagi lahaa adoo maxaa lahaa hadba meesha ay independent ay ku yihiin ama meesha ay maxaa lahaa lagu isticmaalayo
inaad yani aad ku hagto processing inaad ku sameyso aad ku hagto meesha. sidoo kale wuxuu leeyahay users oo leeyahay. waa jeclaan lahaa asigoo dhan inaan sharxo laakiin way kala duwan yihiin. content management waa gooni, wordpress-kana waa gooni. wordpress waa koorso dhameystiran ayaan ku qaadan doonaa wordpress-ka. marka userska qaybta userska waxa waaye qaybtii authorska dadka website qoraya, dadka qorayaasha website-ka ah. maamulka iyo qorayaasha ayay kala yihiin. dad waxbay qorayaan, dadna maamul waaye. qaarna waa maamulkii, qaarna waxbay qorayaan, qaarna waa dadkii website-ka muxuu ahaa designerska ahaa, dadkii maamulkiisa hayn lahaa website-ka, wixii ka qaldama, wixii update u baahda, waxaasoo dhan dadkii yani maamulkeeda qaban lahaa. marka qaybtani userska waxay u saamaxaysaa in qof cusub aad soo diiwaan geliso, qofkaasoo aad siin doonto username iyo password. halkan uu ka sii doono usernamekaas iyo passwordkaas uu yani allowance yani allowing uu ogolaanayo available uu yahay, in yani qofkaasi available ay u noqoto in website-ka uu qoro, micnuhu website-ka uu bostiyo uu soo dhigdhigo, laakiin uusan u xadgudbi karin systemka iyo waxyaabaha kale. qofkaasi xaggaas ma tagi karo. waan idin tusi doonaa koroska wordpress-ka ee ka hadlaya macluumaadkaas. qaybta xigta maxay tahay? qaybta iyadu xigta waxa waaye content management and social internets. marka content management-ga what makes up a content management system? maxaa yani laga sameeyaa content management system? muxuu ka kooban yahay? content management system wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 2 qaybood ayuu ka kooban yahay. qaybahaas oo kala ah CMA iyo wuxuu ka kooban yahay CDA. CMA-ga muxuu yahay? waa qaybta ku ogolaanaysay inaad wax ku darto, waxna aad ka maamusho, inaad wax ku darto wixii aad ku dartay website-ka macluumaadka cusubaa iyaguna aad maamusho inta lagu guda jiro website-ka gudihiisa. midka kale muxuu yahay? CDA-ga waxa waaye waa back end way, behind the scenes, yani inputka waxyaabaha aad soo dhigto. delivery-ga back end-ga waxa laga wadaa waxyaabaha macnaha aad soo dhigto inta website-ka aad soo geliso, behind the scene processes-ka waxyaabaha aad soo geliso oo maxaa la dhahaa ee usoo muuqanaya dadka, laakiin keedinaya website-ka uu keedinayo. website-ka uu keedinayaa stories uu ku sameeynaya, probably place ayuu leeyahay uu ku keedinayo maxaa la dhahaa macluumaadkaas CDA-ga ah ee delivery applications-ka soo dhigtay. waxbuu fududeynayaa CDA-ga, waxbuu fududeynayaa. wuxuu fududeynayaa in boostiyada website-ka aad soo dhigtay delivery inuu ku sameeyo dadka visitors-ka uu gaaro. sidoo kale wuxuu soo bandhigayaa tirada cadadka ee dadka soo booqday ayuu soo bandhigayaa. sidoo kale wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa wuxuu yani notice kuu siinayaa marka uu rabo website-kan in maintain lagu sameeyo, maintenance dayactir in lagu sameeyo, update markuu rabo website-ka ayuu ku siinayaa maxaa la dhahaa notification ayuu ku siinayaa. marka waa wax aad iyo aad u muhiimsan. examples ayaa jiro oo kuwa badanaa la isticmaalo. tusaale waxaan soo qaatay wordpress-ka marka waxa waaye platform-ka lagu sameeyo website-yada. waa platform shirkad ama shabakad bixisa adeeg website bixisa, kuwaasi oo different sites lagu dhex samaysto, different categories lagu dhex samaysto. 62% maxaa la dhahaa suuqa marketka dunida oo aad looga isticmaalo. marka wordpress wuxuu leeyahay qayb kale maxaa la dhahaa kala duwan, qayb oo la yiraahdo wordpress.org, shabakada internetka ee la yiraahdo wordpress.org oo qaabilsan themiska, pluginska qaabilsan. waxay kaliya qosaysaa pluginska iyo muuqaalkii wixii website-ka quruxdii aad ku soo bandhigi lahayd. marka muuqaalkii website-ka quruxdiisa aad ku soo bandhigi lahayd. wordpress.com muxuu yahay? wordpress.com waxa waaye midkii laga sameynayay
site-kaaga midka laga dhisayay ayaa waxa la yiraahdaa shabakada website-ka site-ka laga dhisayay ayaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa wordpress.com. wordpress.org na waa meeshii aad teamka aad ka soo iibsan lahayd ama teamka meeshii aad ka soo maxaa la dhahaa degsan lahayd iyo pluginska iyo waxyaabaha la halmaala website-kaaga bilicdiisa iyo performance-giisa sare u qaadi kara. marka badanaa dadku way isku qaldaan wordpress.com iyo wordpress.org. org waa shabakad gooniya waaye, isla wordpresska family wordpress ay kamid tahay, laakiin shaqaday ku kala duwan yihiin. mid wuxuu furayaa, mid wuxuu dhisayaa website-ka, midna wuxuu leeyahay quruxdii website-ka ayuu dhameystirayaa. sidoo kale waxaa jira software oo muxuu ahaa iyaguna kamid ah content management platforms ka kamid ah ee dhinaca yaala wordpresska. maxaa kamid ah? Drupal-ka kamid ah, Joomla kamid ah, Magento kamid ah oo lagu talagalay for e-commerce stores. E-commerce stores in yani productyo la soo geeyo productyadaas oo la sii iibiyo, purchasing lagu sii sameeyo, isla productyadana uu kaydiyo, dalabna uu dhici kara, meesha order uu ka dhici kara, order systemka markuu saa u dhaco purchasingkana uu dhaco. maxaa la dhahaa shabakada sidaas sameynaysana ee leh company-ga website-ka leh inay leedahay store oo maxaa la dhahaa market store inay leedahay iyo online market store, both labadaba inay leedahay, absence iyo online ba labadaba inay leedahay. marka Squarespace-ka asna wuu jiraa, waa nooc kamid ah platformska content management-ga popular-ka ah. Wix ayaa jira, Wix-ka waa la isticmaalaa, Wix-ka e-commerce-ana badanaa lagu isticmaalaa iyo shabakadaha ayaa isticmaala oo kambaniyada organizationska caadiga ah ayaa isticmaala ee ganacsiga. Typo 3 mid la yiraahdaa jiro, asna waa la isticmaalaa. There are also a lot of other less well-known content management systems. kuwo kale ee kasii badanna way dhixi karaan, way jiraan. haddii aad raadiso the platforms of content management system Google-ka aad ku qorto, kolba tirada ee noqdaan iyo cadadkooda iyo magacyadooda iyo waxay qabtaan iyo shaqadooda waxay tahay waa helaysaa. noocyadu maxay yihiin marka website-ka? noocyada website-yada oo lagu dhiso content management system-ka maxay yihiin? waxaa ugu horeeya static websites-ka. Static websites-ka waxa waaye website-yada kuwa maxaa la dhahaa caadiga ah, kuwa caadiga ah sida blogs-ka dadka yani maxaa la dhahaa raba personality-ga website-yada ah, blogs-ka kuwa news-ka qaabilsan, e-commerce-ga kuwa qaabilsan, kuwa forums-ka, kuwa social networks-ka, kuwa online courses-ka LMS-ka e-learning system-ka, iyo membership sites-ka, iyo waliba portfolios-ka kuwa CV-yada iyo waxyaabahaas qoraya ee dadka u diyaarinaya. way diyaarsan yihiin, lacag bixinaysa, CV dhameystiran uu ku soo dejinayaa. marka waxa waaye horumarka iyo isbedelka dunida aadka u weyn laga gaaray dhanka internet-ka waay. wax walba maanta waxay noqdeen, waxa iska fududeey noqdeen, wax iriiri loo galay ma jiraan. marka hadda midkan content management-ga waa platform soo leeyahay oo diyaarsan oo aanan kaaga baahnayn wax code ah inaad qorto. qofka noocaasna muxuu ahaa developer waaye, magaca Soomaalian siinayna anagu Soomaaliya. qofka noocaas waa developer waaye, because code-na ma qorayo, waana developer. structure-ku dhisaya, website-ku dhisaya, laakiin preference uu siinaya midkan best CMS platform-ka ugu fiican ee la isticmaalayo muxuu yahay 100% la isticmaalo. preference wuxuu ku siiyay WordPress iyo Drupal iyo WordPress iyo Squarespace. adi absolute midka ugu wanaagsan ee la isticmaalo waa WordPress, midka ugu wanaagsan 100% ama 62% caalamka aadka loo isticmaalayo
ee aadka ugu quruxda badan ee aadka maxaa la dhahaa pluginska maxaa la dhahaa hagaya leh millions plugins oo leeyahay oo hagaya leh waa WordPress-ka. process-ka aan u marayo maxay tahay markaan rabo inaan dhiso website? waa su'aal aad iyo aad u muhiimsan oo maxaa la dhahaa qofka raba developer inuu noqdo uu ogaado, yani web designer inuu noqdo uu ogaado, web designer inuu noqdo qofka, iyo qofka raba muxuu ahaa website-ka in loo dhisa. waa labada qof, qofka user-ka ah ee isticmaalaya iyo qofka developer-ka ah ee dhisaya website-ka. waa waxa laga raba inay ogaadaan. inkastoo badanaa dadkanaga aysan maxaa la dhahaa aysan dadka dhisanaya website-yada aysan taa ogaal u lahayn, because waxa waaye qofkaas wuxuu option hadhow u heli karaa in yacni loo wargeliyo maxaa la dhahaa naqshada nooca uu doonayo inuu asaga qofkaas uu soo samaysto uu doorto. wuxuu ogaal u leeyahay processka la marayo, ogaal u leeyahay. kan dhisayana wuxuu raacayaa choice-ka qofkaasi ayuu raacaya, wuxuuna u dhisayaa maxaa la dhahaa sida processka maxaa la dhahaa uu yahay sida saxda ah ayuu ugu dhisayaa. kow maxaa ugu horeeya laga doonayaa qofka? waxaa ugu horeeya laga doonayaa purchase domain, inaad domain aad iibsato, domainka ugu wanaagsan, shabakadaha ugu wanaagsan inaad domain aad ka iibsato. domainku muxuu yahay marka? domainku waa magaca own website. magaca domainku waa laba qayb, midna wuxuu kicinayaa magacaaga, magaci kii aad gelisay ayuu kicinayaa, hawaduu gelinayaa, magacaagu soo bandhigaya, hawada uu ku gelinayaa. midna waa magaci kii adiga aad dooratay. magaca kan adiga aad dooratay waa magaca website-ka loo bixiyay uu leeyahay. midkii oo saamaxayay magacaasi in hawada la geliyo magaca maxaa la dhahaa website dhammaystiran uu noqdo, website-kan uu membership uu ka noqdo shabakada account domainska leh maxaa la dhahaa bixinaysa domainka leh uu ka mid noqdo. marka badanaa dadku way isku qaldaan, domain aan iibsanaynaa. domainku waa magacaaga iyo wixii u saamaxayay magacaaga inay hawada ay galaan, inay yani internetka ay saarmaan, wixii u saamaxayay. qaybta dambe ee raacaysa ayaa waxaa la yiraahdaa domainka kan maxaa la dhahaa oo uu raaci lahaa magaca. domain server iyo domain name la kala dhahaa. marka qaybta dambe ee raacaysa waa domain serverka. waa domain serverka waa kii domainka aad lahayd oo aad iibsatay. waa domain name-kana waa kii magacaaga ahaa, kii magacaaga. marka dadka badanaa way isku qaldayaan, ma fahamsana, waa la isku qaldayaa. marka domain serverka wuxuu ku saamaxayaa in access uu ku sameeyo website-kaasi, internet access inuu u sameeyo, address-kaasna uu yahay addresska kan adiga aad qoratay uu yahay, kaas oo maxaa la dhahaa adiga aad isticmaali doonto, magacaaga addresskaas aad isticmaali doonto. accessna uu ku sameeyo qaybta kale ee domain serverka in uu magacaasi uu hawada u galo. okay, maxaa kaloo loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay markaa sidaas aad samayso waxaa dhacayo installation a dhacayo. muuqaalka waxaan ku samayn doonaa muuqaalka kan ugu horeeya ee maxaa la dhahaa sharaxaada cashirka ee course-ka ku saabsan WordPress ee noo xigi doonta course-kan insha Allah hadduu rabbi karaali noqdo. course-kan ayay noo xigi doontaa ama course-ka kale ayay xigi doontaa. course-kan horaan waxaan u sheegay course aan soo interrelation aan kusii sameyn doono kala maharayaan, because waa in wixii magac website laysla yiraahdo isla socda inaan hal mar aan ka wada baxno, wixii coding ah iyo wixii aanan coding ahayn oo magaca website ba ku soo arooraya inaan hal mar ka wada baxno. waxaan horey u ballan qaaday contentigan inuu ku xigi doono course-ka kale ee la yiraahdo web basic building oo qaab cusub ah maxaa la dhahaa oo aad iyo aad loo fahmi doono, oo aan saddex maxaa la dhahaa methods aan isticmaali doono, three method languages aan isticmaali doono oo CSS iyo JavaScript iyo HTML ah.
oo aan isticmaali doono oo aan waqti maxaa lahaa dadka ay ku fahmi karaan iyo muxuu ahaa iyo qaab fudud ee loo fahmi kara practice-kiisana aad ay u fududahay ayaan iyadana diyaarin doonaa insha Allah. sidoo kale koorsooyinka waxaa kamid ah aan diyaarin doono koorsooyinka aan soo wada waxaa kamid ah graphic design-ka oo dad badan ay baahi weyn ay u qabaan. graphic design-ka Photoshop-ka iyo muuqaalada qaabka loo sameeyo iyadana koorsooyin ayaan ka bixin doonaa. waan kadib markaan aan ka wada baxno ganacsiga iyo maamulkiisa iyo waxyaabo kale programkanaga qoseeya iyo ujeedka aan u sameynay barnaamijkanaga aan u sameynay ayaan iyaguna maxaa lahaa aan ku sii dabatixi doonaa. installation dhacayo sida process-ku ahaa sida loo dhisayo kow waa inaad domain iibsataa, laba waa inaad installation u dhacaa. installation-ka domain-kan markaa iibsatid hosting-ka ay iibsatid kadib maxaa lahaa yani aad doorato maxaa lahaa content-iga inaad doorato content-iga WordPress inaad doorato ama midka quruxda badan waa WordPress. horta aniga aan kula talin lahaa WordPress-kaas inaad doorato waa web server-kaaga waaye. web server-kaas inaad doorato kadib theme option-kaas web server-ka markuu uu dhameystirmo installation-kiisa waxaa dhacayo theme option dhacayo in yani theme aad iibsato. koorsada ku saabsan content management system halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Umar ayaa idin la socodsiinayay. intaan qaybtayada xigta ee course-ka web basic business-ka magacaawseedoo dhan hal mar aan ka wada bixinaa sidan hore idin sheegay code iyo bilaa code intaba code-na waan qoraynaa bilaa code-na waan muujinaynaa intaba. waxaan ka soo baxnay internet digital ads platforms-kan ka soo baxnay oo xayisiinta lacagaha laga sameeyo. iminka content-igan ka hadalnay waxaan noo xigi doonaa web basic business-ka noo xigi doonaa. sidoo kale macluumaadka kale iyo interrelated courses-ka noo xigi doona iyaguna waa programyadeena maxaa lahaa iyo ujeedka aan u sameynay maxaa lahaa hawshan aan u sameynay. marka waxaan idin leeyahay la socosho wanaagsan. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen oo aad ku celcelisaan mar waliba practicadana aad idinku sameysaan. micnuhu waxa waaye waxaan kaliya waxaa lagu siinayaa wadadii aad u mari lahayd. qofka la rabo in wadada uu qaado waa adiga oo yani waxa kaga horeeya uu soo arka waa adiga. marka dadaal wacan iyo waqti wanaagsan ayaan idin rajeynayaa. waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan.